السلام عليكم داودياشا إن شاء الله waxaad ku soo dhawaataan qodobada qaran joog news wararkan waxa ugu weyn musharaxa xukuumadda Soomaaliya ay sidato wasiirka gaadiidka Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa soo wajahayo walwal ku aadan xagga doorashada Jubbaland gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug Dr. Abdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo ayaa dib ugu laabtay Dhuusamareeb ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan shirka la filayo in dhawaanba uu ka furmo gudaha magaaladaasi dawladda Mareykanka ayaa fargelin ku sameynayso arrimaha maamulka Jubbaland ayaa xal u raadinaysa muranka siyaasadeed oo wali ka taagan doorashadaasi maamulkaasi Jubbaland wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu warramay in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa loo yaqaan Bangarafta ayaa dad shacab ah ku weeraray duleedkaasi magaalada Walaweyn ee gobolkaasi wasiir dawlaha Imaaraadka Carabta Anwar Kargaash ayaa ka hadlay maqaalkii uu daabacay wargeyska New York Times laguna hadlayay in Qatar ay lug ku leedahay qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay taasi cadeyn u tahay xiriirka Qatar ay la leedahay argagixisada maamulka Puntland ayaa la sheegay in bil waliba ay lacag $10 ah ku bixiso deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka taagan maamulkaasi Galmudug oo muddo dheer ah loolan siyaasadeed iyo muran dhuleed uu ka dhaxeeyay wararkii ugu dambeeyay wadahadallada Kornel Caari iyo Somaliland oo warbixin idinka ka hayno qodobadaas iyo qodobo kale oo taasoon ayaa warkeeni ku daawo doontaan imankana u diyaar garooba warkeeni oo dhameystiran markale daawadayaasha aan jecel lahay isku soo naqad haboon fadlan hadii uu yahay channelkeena markii kugu horeysay subscribe inoo saar gambarka furo si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay umuraha Soomaaliya iyo caalamka aan soo dhigno wad ku maasantaa daawaday aan ku horeyno musharaxa xukuumadda Soomaaliya ee sidatay doorashada Jubbaland ahna wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa waxa haatan soo wajahayo walwal xoogan ee ku aadan ololihiisa doorashada gaar ahaan sidii uu u tagi lahaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose Omar ayaa shaaciyay sababta ugu baaqday safar uu dhawaanba ku tagi lahaa Kismaayo si uu ugu dhawaaqo musharaxnimadaasi Jubbaland waxaana sababtaasi uu ku sheegay inuusan doonaynin inuu ka baaqsado dagaal dhiig iyo dhibaato halkaasi ay ka dhacdo safarka aan Kismaayo ku tagi lahaa aniga ka baaqsaday waayo waxaan ka fogaanayaa iska horimaad uu ka dhaco qof isku dayay inuu qaado oo halka igeeyo ma jirto ayuu wasiir Omar sidoo kale waxa uu intaasi ku daray markii uu tagay Kismaayo in ay ilaalin doonto ciid marka asaga dabcan u gaar ah sidoo hadalka u dhigay kadib markii uu dhawaanba ka biyadiiday in madaxweyne Axmed Madoobe uu ciidamo uu la tago gudaha magaaladaasi inkastoo aan xaq u leeyahay uu yiri in aan la ilaalisho Kismaayo marka aan tagayo ciidan ee dabcan waxa weeye gaar ah ilaalishaan ka sokow Ilaahay ayuu yiri Master Omar dhanka kale waxa uu hoosta ka hareeqay in wali dadka talada xun ee ummadda ay waalayaan isla markaana uu dagaal huranayaan Kismaayo sida uu hadalka u dhigay dadka talada xun baa wali ummadda waalayo dagaal aadan idinku hurinayo Jubbaland kama dhici doonto oo yiri aqliga ha shaqeeyo ayuu intaasi raaciyay xiisadda siyaasadeed ee Jubbaland ayaa kasii daraysa iyadoo la filayo in bisha soo socota Agoosto la qabto doorashada guud ee maamulkaasi Jubbaland markana Galmudug gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Abdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo ayaa dib ugu soo laabtay Dhuusamareeb ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan shirka la filayo in dhawaanba uu ka furmo gudaha magaaladaasi Dr. Baadiyo ayaa markaa ugu horeysay ugu baaqay in aan la siyaasadeen dib u heshiisiintaasi dawladda ay ka wado deegaanadaasi Galmudug waxaana ugu baaqayaa waxgaradka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta in aan la siyaasadeen dib u heshiisiintaasi Galmudug malahan mucaarad iyo muxaafad waa in ay ka soo qayb galaan shirkaasi ayuu yiri Dr. Baadiyo sidoo kale waxa uu intaasi ka warbixiyay safaro 6 maalmood ah oo ku soo dhaafay ayuu ka bixinayay deegaano ka tirsan Galgaduud bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha ayaa tilmaamay in deegaanadaasi ay tageen ay ka jiraan tabashooyin badan oo isku jira kuwa beelo dhaxdooda ah iyo kuwa qabo maamulkii hore meel kasta oo aan tagno waxa ay ka jiraan tabashooyin ayuu yiri oo beelaha dhaxdooda ah ayaa tabasho qabo qaarna maamulkii hore ay wax ka tabanayaan halka qaar amniga dabcan goobtaasi shirka ka dhacayo tabashadaasi way badan tahay ayuu yiri waxaana oo intaasi uu ku daray in marka la isku daro fariintaani oo aan sidno waxa ay wax kasto ka dhaxayaan reer Galmudug shirkaana waa in ay ka soo qayb galaan beelaha ka soo qayb galaan
waxa ay tabashado halkaasi ay ku xalinayaan ayaan ku xalin doonaa ayuu dib u dhiska dowladnimada lagu shaqeynayo ayuu markaasi yiri Dr. Baadiyo. shirweynaha dib u heshiinta Galmudug ayaa la filayaa inuu ka furmo 5 bisha soo socota iyadoo wali beesha degto Cadaado ay ka biyo diidan tahay in shirkaasi ay ka qayb gasho. dowladda Mareykanka ayaa fargelin ku sameynayso arrimaha maamulka Jubbaland oo ay xal u raadinaysaa muranka siyaasadeed oo wali ka taagan doorashadaasi maamulkaasi. xubno ka socda safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa maanta ku wajahan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. wafdigaani ayaa waxaa horkacayo safiirka Mareykanka oo fadhiyo magaalada Muqdisho Donald Yamamoto. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayo in wafdigaani ay ka yihiin qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliya inkastoo aanan la shaacinin. Yamamoto iyo wafdigiisii ayaa kulamo gaar ah la qaadan doona madaxweynaha Axmed Madoobe iyo musharaxiinta iyo odayaasha dhaqanka iyagoona kala hadli doono arrimaha doorashada la filayo in dhawaanba ay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe iyo musharaxiinta lolamayo ayaa cabasho ka muujinayo ayaa isku haya doorashada. xaaladda Kismaayo ayaa sidoo kale wali kacsan kadib markii uu shalay lagu soo daadiyay ciidamo cusub oo ka amar qaata madaxweyne Axmed Madoobe oo waqtigiisii dhamaaday. wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu waramayaa in ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano bangaraafta dad shacab ah ay ku warareen duleedka magaaladaasi Walaweyn ee gobolkaasi. weerarkani ayaa si gaar ah loola beegsaday beer ku taalo banaanka magaaladaasi halkaas oo ay ku sugnaayeen dad beeraley ah. inta la xaqiijiyay waxa weerarkaasi ciidamada ay ku dileen ilaa 6 qofood la sheegay in ay isku qoys ahaayeen. sidoo kale waxa la yahay nolol iyo geeriba nin kale oo ku sugnaa beertaasi oo weerarkaasi ka dhacay sida ay xaqiijeen ila deegaankaasi. sida aan wararka ku helino ciidamada fuliyo weerarkaasi ayaa ka soo baxay saldhigga militariga ah ay ku leeyihiin deegaanada Beledowle ee gobolka Shabeellaha Hoose. ilaa ay hadda lama ogo sababta loo laayay dadkaasi rayidka balse marar badan ayay ciidamada dowladda iyo kuwa Amnisoon ay dad shacab ah ay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose. dhacdadii ugu xoogaaneed oo ay la yaab ku naqatay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay dhacday 25 Agoosto 2017 ee ka dhacday deegaankaasi Bariire kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanib ah ay ku dileen ilaa 10 qofood oo rayid ah aan waxba galabsan. wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Karkaash oo ka hadlay maqaalkii uu daawacay wargeyska New York Times laguna hadlay in Qatar ay lug ku lahayd qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in intaasi ay cadeen u tahay xiriirka oo ay Qatar la leedahay argagixisnimada. Karkaash oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray halista codka laga duubay ma ahan mid lagu dabooli karo war saxaafadeed la soo saaray. wasiirka ayaa intaasi ku daray oo laynta argagixisnimada ah ee ka dhan Imaaraadka waa mid laga shalayn doono. wuxuuna intaasi raacay in xiriirka afarta dal ay u jireen Qatar oo ahay mid loo baahnaa. toddobaadkii tagay wargeyska New York Times ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa daabacay cod maqaal ah oo ka wada sheekaysanayaan nin ganacsada ah oo u dhow amiirkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani oo iyo safiirka Qatarka u fadhiyo Soomaaliya Xasan Xamsa iyagoona ka wada hadlayo qaraxa ka dhacay Boosaaso iyo dilka isla magaaladaasi loo geystay madaxii DB Wall ee degmada Boosaaso. ganacsadaha ayaa u sheegay inay ka warqabaan dilka iyo qaraxyada sidoo u sheegay ayna ka dambeeyaan xulafadooda si Imaaraadka ay uga guuraan magaalada Boosaaso cabsi darteed. qaraxaasi oo ay sheegatay kooxda Daesh ayaa waxa ku dhaawacmay 8 qofood. maamulkaasi Puntland ayaa lagu sheegay in ay bil waliba lacag $10,000 ah ay ku bixiyaan deganaansho la'aantaasi siyaasadeed ee deegaanada maamulkaasi Galmudug oo muddo dheer ah loolan siyaasadeed iyo muran dhuleed uu kala dhaxeeyay. xubno ka sarsare ka tirsan maamulka Ahla Sunna wal Jamiica ayaa Qarjoog News u xaqiijiyay in maamulkaasi Ahla Sunna ay bil waliba lacag gaarayso $30,000 Mareykanka ka qaato maamulkaasi Puntland sidoo kalena adeegyo lacag la'aan ah loo sameeyo. lacagtaani la siiyo Ahla Sunna wal Jamiica ayaa la sheegay in laga jaro degada canshuurta Boosaaso sidoo kalena gaadiidka iyo adeegyada u socdo Ahla Sunna si lacag la'aan ah ay ugu soo degaan degada Boosaaso ee Puntland. sababta ay Puntland lacagtaasi ku bixinayso ayaa lagu sheegay inaysan degin siyaasadda Galmudug sidoo kalena aysan israacin gobolada Mudug iyo Galgaduud ay maamulka Puntland u arkaan caqabada koowaad ee horumarkooda.
galmudug iyo Puntland ayaa waxaa dhaxmaray muran siyaasadeed iyo soodinta magaalada Kaalkacyo waxaana dhowr jeer dhaxmaray dagaalo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan wali xal looma helin murankaasi labadaasi maamul waxaana la aaminsan yahay in ahla sunnah ay garab ugu weyn ka helaan maamulkaasi Puntland sidoo kale wararka aan helayno ayaa xaqiijinaya in Puntland ay qayb ka tahay go'aankaasi qaar ay ahla sunnah ka gaarto masiirka siyaasadeed markana Somaliland xukuumadda Muuse Biixi ayaa maanta war ka soo saartay halka ay marayaan wadahadallada u socdo jabhadda Kornel Caare Abdullaahi Abuukar Ismaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa sheegay in ay meel fiican marayaan wadahadallada u socdo jabhadda Kornel Caare wasiirka Abdullaahi ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in xukuumadda Biixi ay markasta ka go'an tahay in nabadgelyo lagu dhameystiro tabashada Kornel Caare wasiirka arintaasi uu ka hadlayay ayaa yiri Caare waa nin Somalilander ah annagana waxaynu ku soo caalamaanaynay 30 sano wax kasta oo inaga hor yimaado in si nabadgelyo ah lagu dhameystiro xukuumaddan go'aankeedu waa in hawshaasi ay ku dhamaataan nabadgelyo waayo nin kasta oo dhinacayna ka dhimanayo ama dhinaca kale waa dadkeeni xilkuna waa mas'uuliyad naga saaran dadkeena la doortay ilaahayna kala xisaabtamayo marka dawladda waxa ay ku dadaalaysaa hawshaasi inay ku dhamaato si nabadgelyo ah si kastaba wadahadallada u socdo xukuumadda Biixi iyo jabhadda Kornel Caare ayaa u muuqda kuwa aan wax badan ka bedeli xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka Sanaag waxaan noogu idlaaday wararkii ugu dambeeyay Soomaaliyeed ka dheehanayseen qaranjoog news warwarka la mid intaan ku wada kulmi doono saaxiibadan jecelahay waxaan idinkaga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh